مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، walaalyaal waa barnaamijkeeni taxanaha ahaa ee ramadaanka aan ugu talagalnay ka hadlayay taariikh nololeedkii rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi ee la magac baxay muxammadur rasuulullah. caawa waxaynu maraynaa alcaalam qabla alislaam. waxaanu rabnaa in yar inaanu diiradda saarno oo aanu ifinno caalamka sidii uu ahaa islaamka intaanu imaan ka hor. wuxuu ahaa caalam dulmi fara badan uu ku jiro. waxaanu kaga kaaftoomaynaa oo aynu soo qaadanaynaa maqaal uu yidhi saxaabiga jaliilka ah jacfar ibn abi aalib uu ka yidhi boqorka xabasha najaashi hortiisa uu ka yidhi markii uu u hijrooday sanadii shanaad uu ka hijrooday maka ilaa iyo ardu xabasha أول الهجرة في الإسلام. wuxuu yidhi أيها الملك. hadalkaa aad u dhegayso. أيها الملك hadalkan wuxuu noo soo koobayaa xaaladii iyo dhaqankii iyo sidii uu ahaa xaaladii uu ku sugnaa caalamka qabla الإسلام. wuxuu leeyahay أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. الله بالفيري وحيري وحانو أهين قوم جاهلين oo xilliga ay ku nool yihiin xilli jaahiliye annagana juhala aanan waxba aqoonin ayaanu iska ahayn oo carabiyaal duurka ku nool ayaanu iska ahayn. fiiri dad aan waxba ahayn ayaanu ahayn, aanan lahayn xadaarad. nacbudu اlasnaam, sanamyadaas dhagxaantaa la qorqoray ee meelaha iska yaala ee waxna aanan tarin waxna aanan anficin oo aanan aqoonin meel laga keenay meel lagu sameeyey ayaanu iska dulkuudadi jirnay oo aanu hor fadhin jirnay oo iska caabudi jirnay. waa dad juhala oo dhagax caabudaya. fiirsada u sifeeyana jacfar ibn abi aalib radiyallahu anhu. marka ay gaajirna qabato wanakulu lmaytata, meydadkan iska cuni jirnay. xalaasha iyo xaaraamta nooma kala soconeen. neefkaa baktiyey intaan dooxana ayaan uurkiisii iyo jiirkiisii dhiiggii iska cabeen oo iska cuni jirnay. dad juhala oo asnaam caabuda oo meydadka cuna ayaanu ahayn. bal fiiri foolxumada inta la eg oo lagu noolaa qabla alislaam caalamka uu ku noolaa bal eg. hay wanaqtacu larxaam, darisna maba aqoonin raxim waxa la yidhahda iyo qaraabo waa goyn jirnay. aabbaha wiilkiis xiriirinaynin, gabadhaa walaasheed xiriirinaynin, wiilkaan abtigii xiriirinaynin, qaraabadaana isxiriirinaynin, waaba goyn jirnay. silatu raxim maba aqooninba. hay wanusii'u ljiwaar, marka aan dheregno waxaan samayn jirnay dadka dariska ayaan ku xadgudbi jirnay oo aan ma aragta aflagaadi iyo cay iyo qayli waa xumayn jirnay. wayakulu lqawiyu mina daciif,
كايغا xoog badan wuxuu madax ugu istaagi jiray oo dulmi jiray kan daciifka ah طيب inta waa intii uu ka yiri boqorka hortiisa ilaahay baa ku dhaashay sifooyinka uu noo sheegay Jaafar waa sifooyin uu caalamku ku sifaysnaa qabla al-islaam inay ahayn jaahiliin ilaan ku dhaashay annaga sifooyinkaas maanta xageen ka nahay ummad boqolkiiba boqol islaam ah weligeed islaam soo ahaan jirtay oo islaamku waqti uu soo gaaray wadan ku wada nool hal wadan leh hal af leh maanta dhaqankeena sawa ilaahay baa ku dhaashay wuxuu ka sheekeynay waa qabla al-islaam weeyaan ummad aan rasuul loo soo dirin aanan aqoonin diin waxay tahay aanan aqoonin Allah wuxuu yahay aanan garanaynin ayuu nooga sheekeynaya Jaafar maanta annaga xageen ka nahay sifooyinka annagoo cilmi ku soo kornay islaam ku soo kornay waxyaabahaas waa waxyaabihii islaamka ka hor ay ku sifaysanaayeen laakiin ma bacda al-islaam islaamkii ayaa zuuriyay waxay noqdeen saxaabada jaliilka ah ya ee la darajo noqday anbiyaalkii waxay noqdeen dadka rasuulku uu ku tilmaamay al-ulama warathatu al-anbiya dadkaas caalamkii oo dhan ku fidiyay nuurka dadka meel walba xor ka dhigay oo mugdigi iyo jahliga adduunka ka saaray dadkaas ka soo baxay islaamka dabadii annaga maanta islaamkii baan ku jirnaa walina waxaan faraqa haysanaa akhlaaqda dinimada islaamku uu baabi'iyay ayaan ku dhaganahay ilaahay baan ku dhaashay Jaafar wuxuu leeyahay waxaanu cunaa jaahiliin ayaanu ahayn maanta annaga intee wax qori karta intee wax akhrin karaysa cilmigeena maanta aayo annaga ninkii caalimka noo ahaa ee sheekh noo ahaa macalinka noo ahaa hogaamiyaha noo ahaa soo kan maanta dhiigeeni daadinaya ma aha sidoo ninka jaahilka uu dhiig u daadin jiray cilmigii la doonayay in lagu badbaadiyo bulshada maanta cilmigii waxa weeyaan ummadii baa seef looga dhigay qoortooda la saaray hay maanta jahligii baanu ku jirnaa waa wuxuu leeyahay waxaanu ahayn qoom caabuda asnaamta caabuda ayaanu ahayn hay asnaamta hadii iyagoo jaahiliina ay caabudi jireen maanta annagana maxaa caabudnaa waa isla xaaladda ayaa maanta haysata annaga maanta ilaahay baan kugu dhaarshay dadkeena mutacallimiinta ahaa qof walbo jaamacad ka soo baxa qof walbo doctor noqda qof walbo uu darajo ilaahay siiyo oo kor u kaca maanta ilaahay kugu dhaarshay muxuu ku fikirayaa inuu sanam caabudo ku fikirayaa hal yaabina kelmadda iyada maxaa waxay kursiga waa sanam oo kale يا كرسي واسنا موكله كرسي maanta ummadii oo dhan ay ku wada jeeda ee indhahoodii ay fiirinayaan oo dhiigi shacabkooda walaalood masaakiintii maxaasti dantiir loo laayay waa maxay ya waxa weeyaan in aad diintaada iyo aqeedadaada iyo ilaahaaga nafsadiina u hurtay ahayd laakiin maanta dadka maxay nafsadooda u horayaan sanamka kursiga la yiraahdo sanamka madaxweynaha la yiraahdo sanamka ma arka ku dhex jira aqalka ku dhex jira ka weeyaan kaasaan u caabudnaa annaga kaasaan wax walba ka hormarnayna kaasaan been u sheegaynaa kaasaan dhiig ku daadinaynaa kaasaan been ma aragta aan dadkii ku kala go'onay oo aan ma aragta ku xumeynay kaasaan har iyo habeen aan ku riyoonaynaa kaasaan ku seexnaa kaasaan ku soo kacnaa kaasaan ku soconnaa kaasaan wax ku cadnaa kaasaan wax ku cunnaa sanam weeyaan bal waaba ka daran yahay sanamka maxaa wacay ka waa loo wada kulansanaayeen sanamka ma ka yeelay waxa dadka dhan ba u kulansanaa dadka dhan ba ma aragtay heshiis baa lagu ahaa laakiin kan heshiis lagu ma aha bal waaba ka daran yahay qabaar طيب wuxuu yiri wanaakulu almaytata mayd ayaan cuni jirnay jahala oo asnaam caabuda oo hadana mayd cunaaya annagana maanta sidoo kale annagoo islaam sheeganayna ayaana maydkii ayaan cunaa maxaan dhaanaa ilaahan ku dhaashay maydkii ilaahay baa xarantimay xaraan buu ilaahay ka dhigay xoolaha agoontan ilaahay xaraan buu ka dhigay maxaan maanta dhaanaa ka maydka cunaya maydkii ilaahay xaaraantinimay cunaya ya iyo annagoo cunayna xoolaha agoonta ee ilaahay uu yiri ka fogaada xoolaha agoonta ya mal cunayna oo ilmaheenii ku korinayna aynan u aabayeelin oo aynan fiirinin halka aan ka keenay ma xaraan baa mise waa xalaal bal anagoo ogsoon meel xaraan ah in aan ka kasbanay xoolaheenii hay maxaan dhana marka waa meedkii oo kale Soomaha طيب wuxuu yiri wanaati alfawahisha fawahishta ayaan la imaanaa waa ka samaanta wadankan wax lagu baabi'iyay waa fawaahishta dadkii gabdhihii dharka intay soo dhigteen rageena sidoo kale oo maanta sidii ayihii la soo ceyrsanay sidii dhurwaagi la soo ceyrsanay xoolihii bahaa'intii aan waxba aqoonay takaalifta aan la saarin aqli aan loo yeelin alla inabi idin aan aqoon oo kale maanta aan u dhaqmeena طيب ونقطع الارحام sifooyinkaas waa sifooyinkii uu sheegay
jacfar ay ku sifeysanaayeen qolooyinkii ahlu badwiga ahaa jasiiratul carab degana caraabiga ahaa juhalada ahaa ay ku sifeysanaayeen qaraabada in la gooyo maanta aniga qaraabadeena seewaay imisaa hooyo dishay gabadheeda imisaa gabar dishay oo aabahe dishay imisaa wiil aabahii dilay imisaa abti wiilkii dilay imisaa laba walaalo isisay imisaa waxa maanta kulliba wada qaraabo dadka iska soo horjeeday aad arkaysaan ee maanta ku hardamaya sanamka kursiga ku hardamaya gidigood waa wada qaraabadii maanta islaamo oo hadlayaan siyaasadii baa kala gooysay sanamka ayaa kala gooyay maanta waxaan ku sifaysanahay dhammaan waxyaabihii jacfar uu sheegayay islaamka ka hor ay ku sifaysanaayeen ayaan ku sifaysanahay annagoo islaamkii una dhex jooga annagoo alculamaa warasatul anbiyaa annagoo una dhex yeelo dhaxalka rasuulka salawaatu rabbi wa salaamu calayhi akhiiran wuxuu yiri wayakulu alqawiyyu minna adhaciif kaayiga xooga badan wuxuu sheekeynaa wiishakadibu jacfar uu wadaa najaashi wayakulu alqawiyyu minna adhaciif kaayiga xoog badanna wuxuu cunaa kan daciifka ah maanta intuba anaga waa ku sifeysanahay maanta ka xooga leh ee kaaba qabiilka ah kaaba gruubka ah kaaba xisbiga ah ka qoriga wata ee maanta isbidaya xoog oo murqaha dadaaminaya waxa weeyaan wuxuu maanta madaxa uga istaagaya dadka masaakiinta ah aan hubaysneen aan waxba haysanin ilmahooda iska korsanaya magaaladii ku haray ilmahoodii ilaahooda meesha ku caabudaya ayaa ka baxsan la waa kuwa guryahoodii laga wada qaatay gawaaridoodii laga wada qaatay oo maaragta hantidoodii la wada dhacay jirkoodii iyo cirdigoodii iyo sharafkoodii iyo qiimahoodii wixii oo dhan bal dalkoodiiba la qaatay iyo guryahoodii oo maanta meelaha ay hawadu ku dilayso roobabka ay ku dilayaan iyo dabaylaha gaajada dhoobad ay u cabaayaan saas weeyaan marka waxaanu ku sifeysanahay يا نصيب حمو وحن كسفي سنهاي وحيابه كسفي سنايين قبل الإسلام وحابد مدابة إن إسلامك أنك نلو صاري محمد صلوات ربي وسلام عليه إنه إمك صوب حيو جعفر إنه شاكين إمك وشيغا هيو صوماليا ما تحيو كسفي سدان أو رسولك مكا كدب أو صوب حيو أنك فائدة سنة سيرة رسولك إي محمد بن عبد الله افتين كان إي خير كان إي ما أركتا نور كان وكسو كردي عالم كان سيردين أن كن نورين ودنكيني أن كن نورين قلبينا أن كن نورين أودكينا نولشينا مستقبلكينا انتبه محمد صلوات ربي وسلامه عليه أيان نوغ فلان أن عالمك وحاكو في ذي ظلمي أياكو في ذي طبقات سره إي طبقات هوسه طبقات سره أو وح والبابا هيسته إي طبقات هوسه أو أنا وحبه هيسنين أو فقير الكيالة جهلي أياكو في ذي عالمك عد wax akhrin kari iyo wax qori kari aad ayuu u yaraa hadii aan fiirino dhinaca diimaha hadii aan eegno waxa weeyaan diimaha inta badan jasiiratul arab waxa la caabudi jiray oo ay ahaayeen cibaadatul asnaam sanami ayaa la caabudi jiray 360 sanam ayaa waxay dhexyiileen kacbada waa buqcadii ugu sharafta badneed caalamka weeyaan halkaas ayay yaaleen oo la caabudi jiray Umar ibn al-Khattab waxaad arkaysaa intaanu islaamin ka hor ayaa laga sheekeeyay oo waa la wareysto waxa la yiri markii uu islaamay kadib ayaa waxa la weydiiyay war markii aad caabudi jirteen asnaamta waxaan ogsoonahay Umar inta aanu islaamin inuu caabudi jiray sanam timir intuu sameeysto waxa laga wariyaa inuu sameystay timir inuu ka sameystay sanam oo safar la galay 360 kan sanam waxa lagu caabudi jiray maka dhaxdeeda laakiin qofka markuu uu doonayo inuu aado banaanka inuu aado in uu safar markuu doonayo wuxuu qaadan jiray ilaah ayuu sameeysan jiray oo boorsada gashin jiray kaas oo wadada ku sii mara si aan loo dafin si hantidiisa ay u badbaado gaajada iyo haraadka ilaahoodii wuu qaadana ilaahi gaajada mas'uulka ka ahaa haraadka mas'uulka ka ahaa ayuu inta gashana dhowr sanam ayuu qaadan jiray oo uu leeyahay kan waa kii oonka oon ima qabanayo inta aan safrayo kan waa kii gaajada gaaji ima qabanayso kan waa kii ruubiga burcadi iyo mooryaanta dhexda joogta ilaahi celinayo weeye Umar wuxuu sameeysan jiray marka sanam timir mar allaalay safarka markuu gaajoodo ayuu marba gacan goosan jiray marba dhig goosan jiray marba illa bixi jiray lug goosan jiray saas ku baabi'in jiray ilaahay markuu ugu deeqay oo uu ku irsaaqay islaamnimada kadib ayaa la weydiiyay waxa la yiri miidan aqli lahayn markii aad caabudi jirteen asnaamta aanan waxba tarin waxna aan anficin waxna aanan dhibin
waxaanu lahayn caqli waanu lahayn oo quraysh ayaanu ka dhalanay dadka ugu caqliga badan ayaanu ahayn ilaahay baa nagu irsaaqay caqli laakiin waxaan naga maqnaa hidaaya naga maqnay saas weeyaan caqliga kuma siinaayo shay wanaagsan kuma siinaayo kuguma hanuuninay shayga wanaagsan caqliga qura bal waxa kugu hanuuninaya dariiqa aqeedada wanaagsan islaamnimada wadada ilaahay waxa kugu hanuuninay oo qura waxa weeyaan inuu ilaahay ku garto oo ku siiyo hidaaya inuu ku siiyo weeyaan sida darteed ilaahay rasuulku waa u bari jiray oo u dhihi jiray اللهم اهد كل عقال بأهاين اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون إله كون وحقرا مهيانه إله سهنون وتده جري تاس ديانة أي أهيت وحاكي جرتي جزيرة العرب وأد البنات إن قبلها إيغو نول لآسو تخيل بلشدنا أو قبلها لو ذا نعبيهي بلشدنا ودكسونتينو كمان مارمان هوينك haweenku waa aasaaskii taranka weeyaan hadii la waayo caalamku baaba ayaa gidigood waxa kaliya hayo weeyaan haweenka ragga kaliya wax ma dhali karahayo caalamka naxariista ee ilaahay uu sameeyay haweenku uu sameeyay xadfiga ah ubadkaagu dhulku qabuusanayeen ubaxa udgoon ayaa bal takhayal aabe markii loo dhalo aasay intuu god uqodo ku duugaya oo isagoo arkaya gabadhiyo ooynaysa uu ma aragtaa uu daday balka warno inta in laak caalamka oo dhan waa ka wada sinaayeen arinka carabtu waxa u badnaadeen marka ilaahay baa nooga xikaayoonaya oo dhahaya wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون بتوطى دي لو بشاري وقبر قولي يا هذا ورهذا لو قبر باكون لطي وجهيسا وحد أركيسا وصوك ضايا وجهك نعلد أيو سارايا وجهه مذوبينايا إسقو عبوس أو وجه طوبا وعار لقبوحيي ayuu gabadhii u iimaanaya islaanta intuu ka dafo ayuu wax isaas oo dhan wuxuu yeelay oo u aasaya gabadhiisa waxa weeyaan wuxuu ka baqahayaa in la yiraahdo war waxayo wuxuu golahana kama hadli kartide orodoo ka tag gabar baa ku joogtay waxayo aan raga haysanin waxayo gabar dhalka ah waa bal fiiri ilaahay baan ku dharshay jahliga intee leeg ayaa lagu sugnaa oo qabla islaam caalamka uu ku sugnaa hay تعال مركا إن ير أنك تصو إسلام كقيمه أوليه هي سيرة قيمه أي لا هي محمد قيمه أدونك أولها يا شرفك أدونك أولها نورك أدونك وكسو كرديه واتر أوليه محمد صلوات ربي وسلامه عليه من كانت له ابنتان فأحسن إليهما كنا له سترا من النار أبو القاسم كسلي وكسو دعي حقا يلدود سنجري أول مرة وإيمد عالمك وأولك ودل استاغي أيا كسو دعي وحقوق استاغي إنه كسو دعي حقا أدونتي الله أدونا ما أنت قرن ميسد مقعيس قرن ميسد تاريخ ديس قرن ميسد قيمي وما أوجد رسولك صلوات ربي وسلام عليه هدي وحلقا ويدين قرن ميسد رسولك صلى الله عليه وسلم كسلي أبو القاسم wuxuu yiri qofkii iskale laba gabdhood oo ilaahay uu ku irsaaqo qofku ilaahay ku irsaaqo laba gabdhood qofkii ku irsaaqo uu ku irsaaqo oo ihsaan u sameeyo wax bara koriya u naxariista illa ay ka qaangaaraan كنا له سترا من النار وحي نقنايان حجاب أي عذاب أو نقنايان الله وحن أباهناهي ما أنت محن أباهي بدناهي عذابك جحيما يا عذابك لغوارها عذابك كلل ما أركت إلهي أسمي بني آدم كعصاد أو أسمي وإحنا قبل بادية محن أباهناهي قفل بوا وجعليه رسولك حوليه قبل أحد آسي جرتين أي حجاب إذين نقن هيا مركز عدسك يقولن باجعلادي همي بصون نقضي فرحدي بصون نقطي والدكي بالجعليسيي ولا حرنتمي وحال حرمي إني آسان بل وحكو جوابيي والدينتي إني قبلها بدباديان إني إحسان فلان إني أتاجنادان إني دوران إني مدح أصلحان إني وناجيان رسولك صوبا وكما ninka maanta caalamka jooga qaa'id walba uu ahaado hogaamiye walba uu ahaado ee maanta xaqaaga sida ugu taagan ee sida dadku ugu gubaabinay waa kuma
حديث قال يا وحكوله صلوات ربي وسلامه عليه من عال جاريتين حتى تبلغا من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. الله أكبر. انتو لبديس فر اسكو دوي ايا وحو ليهي قفكي كوريا برباريا ونحاريستا احسان او سميا لبا جاريدا لبا غبدود او دhalay oo ilaahay uu ku irsaaqay wuxuu imanaya maalinka qiyaamaha isaga iyo aniga oo sida isugu lamaanan ayaan aakhir imaanayna. Allahu akbar. المرء مع من أحبه مالك قيامها أيا وحل إيمانيسا أو إحسان فالقبض هذا قبلها هذا الشيء يريرك يا ضعيفك إلهيك إرزاقي أبدك قرة عينك وإحسان فال عد مالك قيامها إمادت أذي يا رسولك أو سدا سقول معنا وين السون غنينا قدر حيسين كذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبرنامج كيني تحنها أها محمد رسول الله كهد لي تاريخ نولد كرسول كان صوبا صلوات ربي وسلامه عليه. وحن كل حجرني العالم قبل الإسلام سلبوها جزيرة العرب وكسو شاكيني وحاكمدها وحيابه عالمكم هيستي وحلي هذا خطفي أفدوبس قفك حدي وكتب مقالة أو مقالة بنان كذا آذو ولا دفي جري ولا كحيسن جري ولبا لمي وحال سمين جري السوقيد أيا لقيسن جري السوقيد انت لقيو أيا قفكي وحا حرنمديسي أيا لقا قادي جري وحال لقا دقي جري الدون قفو إلهي كو أبوري حرنمو كو أبوري سيا حريديسي أيا waxaa laga dhigi jiray adoon dadku waxay weyn jireen xorriyadoodii ay weyn jireen dibkaasa wax ka xunna malaha yaa qofkii xorriyadiisa laga qaaday xorriyadii uu ku naaloonayay ee ilaahay uu siiyay uu ku irsaaqay qofka hadii mar laga qaada waxa weeyaan nolol u dhiman male waa meeshii ugu dambeysay weeyaan waxa u dhiman inuu qabri inuu galo waxa weeyaan aad ay u xuntahay qofka marka waxa ka jiri jiray waagaas in qofka la dafo waxa kamid ah Zayd ibn Haritha waalidkii baa laga soo dafay isagoo meelaha maray inta la soo qabsaday Khadiija laga iibiyay Khadiijana rasuulka ma aragtaa ay siisay waa ka u xoreynay Muhammad sallallahu rabbi wa salaamuhu alayhi mugdiga aad aragteen ee aynu soo sheegnay inuu soo tataabanay in kasto aynan dhameystirin ayuu caalamku ku sugnaa adduunka wax rajaa oo uu lahaa haba yaratay ma ayin jirin adduun la isoo wada dilahayo adduun dhiig wada daadanayo adduun jahli dadkii uu ku wada dhex jiro adduun nacayb iyo karaahiye oo la isoo wada nacayb yahay ayuu ahaa caalamku marka ayaa marqura ilaahay naxariistiisa oo caalamku u soo diray marqura ayaa caalamkii waxa dul dhawday yaa dul dhabatay caalamkii waxa dul dhabatay neecaw macaan oo qabow hal mar ayaa waxa u soo ifay oo u soo baxay iftiin ay ku diirsadaan Allah iftiinkan waa kuma waxa dhashay khayru khalqillah waxa dhashay khayru khalqillah Abul Qasim waxa dhashay Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf rasulul insaniyah ayaa dhashay Allahu akbar intaynan gelin oo aynan dhaxmaquurin dhalashadiisii Muhammad al-Yatim salawatu rabbi wa salaamuhu alayhi aynu ku salina rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam mar walba aad maqashid agoonka yar ee saxaraha ku dhashay waa inaad ku salisaa sharaf ayuu ilaahay ku siinaya dambigaaga lagu dhaafayaa darajo ayuu ku kordhinayaa Muhammad maciisa ayaad noqonaysaa waxaadna ogaataa salawatu rabbi wa salaamuhu alayhi mar alba markaad ku salisid in rasuulka aanu dhimanin in uu qabrigiisa ku nool yahay in uu ku maqlayo in uu ku soo radinayo oo uu ku soo duceynayo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. طيب asxaabtiis salawatu rabbi wa salaamu alayhi aynu in yar ka wareysano Muhammad al-Yatim Muhammadku waagaas la soo saaray gudcurka ay dadku ku sugnaayeen dhoobada ay ku dhex jireen dhiiga ay dhex jiifeen adduunka wada dulmiga ah adduunka ka xoog weyn oo cunaya ka daciifka ah adduunka isaga ah Muhammad markii la soo saaray ya Muhammad wuxuu ka bedelay Muhammad sidoo ahaa
akhlaaqdiisii dhaqankiisii ayna weydiinay saxaabada rasuulka ag joogay rasuulka arkay Jaabir ibn Abdullah saxaabiga jaliilka ayaa wuxuu leeyahay maalin maalmaha kamida anigoo maraya magaalada Madiina dayaxuna 15 yahay 14 badr uu yahay dayaxu ayaa dhinacii dayaxa waxa iiga hor yimid rasuulka sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibn Abdullah ayaa iiga hor yimid waan yaabay buu yiri Muhammad oo ifaaya waxaan fiiriyaa buu yiri dayaxi وجهي محمد فيريا ضيح فيريا رسول كان فيريا ضيح فيريا وتقوليه مركا فإذا رسول الله أحسن في عيني من القمر وحمد مداب رسولك إن دحيقا يا رسولك أيا إغلوناك بدنا إفتين بدنا ويري ضيح شئت بناتك صلى الله عليه وسلم كلي ماها ليسو وحقوليه عبد الله ابن رواحة wuxuu kamid yahay saxaabada kuwii ugu dhawaa rasuulka shaacirka rasuulku weyn salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi wuxuu leeyahay rasuulka hadaad ka fiirisid meel fog haduu kaaga yimaado oo halkaa oo kale oo kaaga soo baxa salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi kaana ash-shamsa qad ashraqat waxaad moodaa qorraxdii soo bixisay oo baalasha la soo baxday oo caalamkii diirisay ayaad moodaa buu yiri salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi hay wuxuu leeyahay Aba Hurayra رضي الله عنه وأحد صحابة نينك أو أحاديث بدنا ويان قولك الرسول صلوات ربي وسلام عليه نينك أو بدنا أحاديث تلقسو قري ويان رسول صلوات ربي وسلام عليه أبا هريرة وحولي هي قف والبأركي يا ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله والله إنانا أركب ويري شيء كون أكثر الرسول صلوات ربي وسلام عليه لا يا أبا هريرة ما حدعي وحولي هي كأن الشمس تجري في وجهه وحابد مدابة يا ذات سوء أركي وحابد مدابة رسولك يا قرحضه بإنه يكون أحسعته وجهيس يا إنه قرحضه أحمريس أو أحدوالنيس أو أعدها بالمدابة افتينك كسوك عيا رسولك صلوات ربي وسلامه عليه محاوعي سدونا رسولك افتين وأهين يا واك رسولك إلهي وكتابك الكريم كأنه شيء وأوليهي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين حق ربي حق الله سبحانه وتعالى وحائد كغيمد نور أي إذا كغيمد محمد بن عبد الله أقونك يركع صلوات ربي وسلام عليه يا كتاب عد أيديس حجوين كيسة يفائديس أي عده أي إذا كغيمد وتقولي صلوات ربي وسلامه عليه مركز آيات كالوات وكلها فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا إلهي بإن كبر الشيء ومد إله ذي نور يحي الله نور السماوات والأرض فير يا رسولك ذي نور يحي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قرآن ذي نور يحي دستورك لوسو دجي يا إلهي عالم أدونك أكهني ويحي نور فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وليهي سبحانه وتعالى oo imikana ku dhaxnool mugdi ku jira jahli ku jira gudcur ku jira dhax fadhiyo meel oo indhala bal fiiri oo aanan aqoonin wadadii loogu aadi lahaa loogu hagaagi lahaa ilaahay ku gaarsiin lahaa ilaahay wadada cad waadixee cad la oo aanan garanaynin oo mugdi wali ku nool bal aanan rabin الله نورك رسولك سنورك قرآنك نورك إن أي قلبك هذا كن نوريان مستقبلك هذا كن نوريان نولشودا كن نوريان حياته هذا إيه ما أردت كن نوريان أخلاقه هذا دخنك هذا قريه هذا أنا ربين ومجد وكل حنون وحلونه كله إلهي بن رمي سناي رسول بن جعلناي كل حياة بالكور يا وكافي كل ديري ويان marka maanta waxa ka jira Soomaaliya bal firi ilaa baan ku dhaashay waxa ka dhacaya Soomaaliya ee mugdiga ee gudcurka dhiiga jahliga ee ma aragtaa dulmiga ka weynay xoog leh cunaya ka daciifka ah ka agoonka ee la duudsiyo xaqeedii ta gabadha miskiinta ee guryaheedii laga saaray hooyada meelaha dowrsanaysa ordaysa ragga oo iscayrsanaya sheekha qoriga la boodaya jahliga aanu ku jirno bal firi ilaahay baan ku dhaashay yaa dhahaya ummadan waa ummad rabbi leh oo ilaahooda nuur yahay dhahay وأمة رسولك ونور يا سدحيا وأمة إلهي أو دحكيني قرآن نور يا دحيا قرآن كي والله ودا آخرنا يا تدكي والد ليا وحصرنا وحويا وحا أوغا ساري كرنا وأن أوغا بحي كرنا سيرة رسولك يا أخلاق ديسي
dhaqankiisii in aan qaadana in aan fiirina qaabkii wiilka yare agoonka muddada 23ka caalamkii soo jiray kumanaanka malaayiinka sana mugdiga ahaa oo facka fac iska soo dhaxli jireen jahliga iyo ma aragtaa dulmiga sidoo 23 sano u bedelay caalamkii uu mugdiga uga saaray iftiin uga dhigay insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo xalaqooyinkeena dambe ayaan ku arki doonaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر